afhayeenka maamulka Khaatumo oo ku sugan wadanka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa wareysi gaar ah u siiyay telefishinka caalamiga ee Somali News waxa uu kaga hadlay wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Khaatumo iyo abaaraha ka jira deegaanada bariga wariyaha Khadar Macalin Deeq oo khadka telefoonka ku wareystay afhayeenka ayaa waxa uu dhacay wareysigu sida tan afhayeenka maamulka Khaatumo wadanka Imaaraadka Carabta Rashid Diiriye Faarax bal waxaad iga warantaa ujeedada TV-ga Somali News ula soo xiriiday iyo waxyaabaha doonaysa inaad ka hadasho. Bismillahir Rahmanir Rahiim waa salaamayaa inta Soomaaliyeed qaarna warbaahinta Somali News telefishinka Somali News oo Soomaalida ku dhaqan qurbaha iyo gudaha ay aad iyo aad ula socdaan hawsha uu hayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto degdeedba ana ku hadlaya dhamaan qodobada Khaatumo ama maamulka Khaatumo wadanka Imaaraadka waxaa maanta la soo xiray inaan ka hadlo arrimaha oo kooban oo aan doonayo mid khusaysa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo mid khusaysa gaar ahaan maamulka Khaatumo haddaan tan ummadda Soomaaliyeed aan ka hadlo waxaan u diraynaa dowladda federaalka Soomaaliya Abdullahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Xasan Cabdi iyo dhamaan guddiga aaraha taas oo aan ku aadan mowqifka aan ka taaganahay ama aan doonayno haddaan nahay ummadda ku dhaqan gobolka ACC ee maamulka Khaatumo in ay noola dhaqmaan ama ay fiirada abaaraha ka taagan gobolka Soomaaliya iyo Cayni iyo dhibaatada halka taagan oo muddo 26 sano ah wax ka soo dowladda federaalka ay soo gaarin taas oo aan doonayo inaan baaq u diro talabaad waxaan doonayaa maanta inaan baaq u diro ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo maamulka Somaliland oo ku aadan xariga xaqdarrada ah ee loo haysto wariyaha ummadda Soomaaliyeed ugu shacbiyad badan oo bil ku jira xaqiiqa Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa wariyahaas oo ah la yiraahdo Cabdimaalik Codoon oo ummadda Soomaaliyeed iyo dibadda Amerika ay joogto xarigiisa ay aad u xun yihiin ayaan doonayaa inaan maanta ka faa'iideysto warbaahinta Somali News inay wadajoogta Soomaaliyeed ay baaq u dirayaan ay ninka xiriirkiisa lagu soo daynayo ugu dambaysa aan ka hadlayna waxa weeye arrimaha maamulka Khaatumo waan doonayaa inaan wixii iga habboon aan ka ilaahdo okay afhayeen waxa weeye muddooyinkii ugu dambeeyay wada hadallada u socday Somaliland iyo Khaatumo adu wada hadallada maxaad kala socotaa wallahi niyo waa mahadsantahay wada hadallada Khaatumo iyo Somaliland bilowday maamulka Khaatumo Somaliland bilowday waa maamulo hadda wajii saddexaad maraya anigu fikrad ahaan ama qodobada fikrad ahaan Khaatumo ama ACC dalkasta ay joogtay intooda badan waa dad doonaya in maanta lagu sii jiro oo ummadda Soomaaliyeed ay dagaal ku waliga ku jirto anigu wixii wada hadala ee lagu gaaray amni ee lagu gaaray nabadgelyo oo lagu gaaray wanaag wadana waa soo dhaweeyay haddana waa soo dhaweeyay waxaan soo ka digay in maanta la fadhiyo ama la siyaasadeeyo maamulka Khaatumo ku biiri maayo maamulka Somaliland cidii wada maamulka Somaliland iyo maamulka Khaatumo isku milmaana raali kama yihiin ma raacsin mana soo dhaweeyno laakiin in wada hadlo dhibaatooyinka dadka dhexe yaala iyo maamulka Somaliland oo dhibaato weyn u geystay sano ugu dambeeyay gobolada Khaatumo in laga wada hadlo oo arinta loo soo dabaalo xal la geliyaa waayo dadka ka dhaco dhibaatooyinka ka waaweyn ka dhaca waan laga wada hadlaa marka haddii maanta laga wada hadlayo waa soo dhaweynaa in laga wada hadlo horena waa soo dhaweynaa laakiin waa in aan la siyaasadeeyna waa la isku milmaya wax midan la yiraahdo ma jiro maamulka Somaliland iyo Khaatumo dad walaalo dirisa waxaan rajaynayaa inay dantooda gartaan oo labada shacbi ee walaalaha aan la isku dirin waa gartay afhayeen waxaad leedahay markaa arrinta nabadda una la xaliyo iyo la isku biiri haddii wada hadalladu ay noqoto inay labada dhinac heshiiyaan oo isku biiraan oo Somaliland Khaatumo ay ku soo biirto maxaa ku jaban inaadaro Soomaaliya khalan oo Khaatumo ku buuraysa ma jiro shacbiga dhulbaanta ama shacbiga Khaatumo shanaga si qof soo jeediyahay oo maanta jecel in Khaatumo iyo Somaliland isku biiraan ma jecelin raali kama nihin wax midnimada Soomaaliyeed ka sokeeya oo aanu ku hadaan reer Khaatumo aan ogon lahay ma jiro nimankaasna waxa weeye waa mid Soomaaliyeed waa meel darisnahay waa man taqriiban dhiig naga dhaxeeyo si aad anaku waxaan aaminsanahay ama rumaysanahay mid aan u taaganahay oo intaas u taag midnimada ummadda Soomaaliyeed afhayeen waxa weeye waxa joogtaa adduunka wadanka Imaaraadka Carabta marka laga hadlayo sool iyo dhulkan ay Khaatumo joogto xaaladooda adu kama waraysid laakiin dadka deegaanka jooga hadii iyagu goostaan inay wada hadalladaasi ay dhalaan inay labada dhinac isku biiraan idinku maxay arintaas kaga soo horjeedaan
waxa weeye waxa weeye dadka gudaha jooga kuwa badan oo maanta gudaha jooga oo aan kaga warrama aniga rashidahaya ayaa jira maamulka Soomaaliland maalinta ay la qabsanayeen kuwa isma oo ismadii waliba SSC oo la socodku sugan baan u sheegay in la socod la qabsaday haddana maamulka Soomaaliland gacanta ku dhigay oo ay rumaysan waayay sidaas anagu raga tanaya arrimahan gobolada SSC ama gobolada Khaatumo u dhun dalool ayaan ahay waxaan rajeynayaa in arrimahan wada hadalka socda waayo dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland wada hadal in maanta la siyaasadeeyo oo la yiraahdo Khaatumo ayaa Soomaaliland ku biiraysa ma qabno ninkii waxa ku fikraya waa in aan jirin annaguna waxaan leenahay warbar wixii dhacay ee dhibaato ah ee aad geysateen ee maamulka sugeysay ha laga wada hadlo wixii dadka walaalnimadiisa iyo wadajirkiisa iyo sidii lagu gaari lahaa ummad Soomaaliyeedna falowgeeda ha la galo maanta gobol kasta in la kala gogoyo goboladii Soomaaliya ama dhacdii Soomaaliya la isu mari waayo isbaraan la isu dhigtaan ma wanaagsana annagu waxaan leenahay ku celinaynaa in la taageero habka wada hadalka iyo ummadda Soomaaliyeed ee isugu imaan lahayd wada hadalka laakiin waa taageersantiin miya wada hadalkan waanu taageeranahay Soomaaliya dhan in wada hadalka waa taageersanahay in gacan xeelada wada geliyo waa taageersanahay in Soomaaliya ay isku soo ilowdo isku niman siyaasiyiin oo mid meel goostay Soomaaliya kala haya oo lagu kala qaybiyay oo mid kasta reerkiisa uu goostay waxaanu ayeesanahay gacmo wada jir bay wax ku wayaan wax ka samir bixilaahay jamiica wala farqu ilaahay in la adkeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed in la adkeeyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed in la adkeeyo afayeen waxa weeye dadka deegaanka abaar baa ka jirta dadkii way dhimanayaan xoolihii kala badh intii badeed way dhamaatay haddaad tihiin qurba joogta maxaa dadkii u haysaan هذا وحوي أنت مركب ورئيس وحن فرصة يدنا في أي سنة وحن تأخذ درجة دولة الفدرال كالصومالية وهو كان محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حصل على كنت قابرها وحوي دولة الفدرال كالفدرال وحنوها إلى ما نكرر إلى دولة الفدرال كالصومالية قبل هذا سؤال سنة يعني ما مكخاتم وإن بشيء لبعض سنة أيا كان وح معاورة أيا كان وح مرة أيا كان وح أرنا برشدة سيدا ترادين ما دام الدولة الفدرال منطقة بستي شعب الصومالي تريد بتبعي سويت ويان لا شقينيان وحنو كعصينا دارها دولة الفدرال مدحوينا فرماجو يسوى خير أن كعصينا إن ماملكا Somaliland iyo Puntland waxa la shay la takasano wixii loo talagalay kulaas macawina gaarsiiyay xabad ka gaarin maantana wixii ay u talagaleen shacabkaas waa shacbi go'doonka ummadda Soomaaliyeed waa shacbi ka go'doonka dawladnimada ay soo gaarin waa shacbi dawladnimada ay ugu dambeysay 1999kii hadaba dawladda waxaan ku codsanay dawladda federaalka in dhaqaalaha loogu talagalay ee caalamku bixiyaan ee ay dawladaha caalamka bixiyaan in si toos ah loo soo gaarsiiyo goboladaas sanaagyacayn maamul baa ka dhisan shaqaynaya madaxweyne leeyihiin wasiir madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin ra'iisul wasaare waxay leeyihiin gudoomiye baarlamaan waxay leeyihiin guddi federaal guddi Khaatumo oo u magacaaban abaaraha oo aan tusaale ahaan usoo qaadanayo ayaantii dhaweyd ee madaxweyne cabdi cali khaliif uu tagay Jabuuti oo uu ka soo qaaday macaawinada dowladda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Markiile waa la ogaa sida ay u gaadhay taasoo weliba koomayd oo ahayd 240 $8,000 ahayd way gaaday goboladaas soo sanaagyacan haddana maanta waxaanu ka codsanaynaa in aan la isu tuurtuurin goboladaas oo ka ummadda Soomaaliyeed wixii dowladda federaalka iyo ummadda ku dhaqan gobolka Banaadir ay soo gaarsiiyeen ay si toos u soo gaarsiiyeen shacbigaas ama ha kala xiriireen maamulkooda ama ha kala xiriireen cilmada okay afayad idinku marka taa federaalka iyo laga yimaado idinku maxaad u haysaan dadkii qurba joogta dadii waxaan u haynaa qurba joogta aan u haynaa wixii karaanka iyaga ee aanu ka qayb galayno hadday tahay gobolada soo sanaagyacayn hadday tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed diyaarayaan u nahay waana u dirnay waana la daba taagnay xaqay ugu dambeysay wariyasha sida kan dalada Khaatumo waddanka Imaaraadka aan u diray meelaha maruhu ka socoto saas baan meel kasta oo jaaliyada Soomaaliyeed joogta looga dirayaa waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed ay dadka abaaraha ay wax u diraan waxaan doonayaa in كمان تجد للا قيبسو dadkii Soomaaliyeed ee ku baabaya gudaha wadanka gaar ahaan gobolada Soomaaliyeed ayna maamulka Khaatumo cid u maqan ma jirto aan ilaahay ahayn iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda federaalka ku celcelinayso afayeen waxa tiri 25 ka sano Puntland iyo Soomaaliya wax u bay qabaan hadama dawladda federaalka wax u qabatay
gobolada sool sanaag iyo cayn waxa weeye dowladda federaalka ay taageedo waaba gaabnaa beesha caalamku had iyo goor waxay dhegeystaan niman ka yimid Puntland iyo Somaliland oo maamulo sheeganaya oo waxay ka dhaadhiciyeen in beesha caalamka gobolada sool iyo sanaag iyo cayn ay yihiin goob distributed area la isku haysto oo aan maamulo ka jira cidna lahayn bay u haystaa dowladda federaalka ana taas bay kula dhaqantay oo ay goboladaasi sool iyo sanaag iyo cayn in ay ahayn meel aan ciddo ku noolayn dadkeena oo ka raacsan yahay Puntland iyo Somaliland ka raacsan yihiin fikirkaas waa been magaalada Saleex 2012 waxa lagu qabtay shirkaas oo shirkii ugu ballaaran ee Soomaaliya ka soo qabtay maamul baa lagu dhisay isla markaana waxa curyaamiyay oo uu ka socon waayay maamulada hareeraha ka xiga maamulada iyagu hore u dhismay ee ka socon waayeen dowladda federaalka ee kala dambeysana waxa ay yeeleen taadi ay siinayeen maamulada hareeraha ah iyagoo ay shacabka Soomaaliyeed ee u taageenta midnimada ummadda Soomaaliyeed inay taageeraan iyagoo aan markale leeyahay maanta laakiin tii waa dhamaatay maanta dhalinyaro oo maskax furan baa meesha yimi maanta madaxweynaha meesha maanta waxaa aysanahay in arrinta maanta ka dhacday isbedel ka dhacay magaalada Muqdisho wax badan ka bedel doono shacbiga ku dhaqan gobolada Khaatumo afayeen waxaa jira colaadaha jira beelo iyaguna ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool maxaad iyaga baaq u diraysaa inaadaro baaq waxba tari maayo baaq kun mar baaq la diray waxaan maanta u baahanahay maanta maadaama ay niman culimo ah oo Sheekh Cabdinaasir iyo rag odayaal ku dhexstaan ay maanta dibka halka ka dhacay koonfurta gobolka Sool waa dib u yaala ummadda gobolada ICC waa dib u talo ummadda Soomaaliyeed maanta reer Soomaaliyeed ama beelo Soomaaliyeed oo reer isku dilaya meeshaas ma yahay lama arko waxaanu leenahay walaalayaalow hadaa tiin beelaha afka baan ku dhuftay beelaha barsameeya ayaad wax isku kiin dhaawaa ma jire dhibaatada maanta ragaalisay ummadda Soomaaliyeed maanta dhibka ku sii kordhinay shacbiga walaalaha wax isu dhaamaa ma jiro labada beelood halka ku dagaalamaya waliba sida xun makasta u dagaalamaya waxaanu leenahay dagaalka hala joojiyo waxaanu leenahay culimada maqla waxaanu leenahay cuqaasha maqla waxaanu leenahay garaadada maqla waxaanu leenahay aqliga maqla waxaanu leenahay waxaanu baryaynaa ilaahay ka baqa dagaalka joojiya nabadgelya qaato cidii soo gurmaysa ama Puntland ka imaanaysa ama Hargeysa ka imaanaysa dhexgeysa oo cidina dhex fariisanaysa ma jirto cidina ku dhex jirtana ma jirto maanta waxaanu leenahay nabadgelya la wada qaato annaka naga farxiyo waayo dib korkii ku dhintaa meesha waa kale waanu ka naxayna maanta la wado maqashiya inkoo gacmaha haysta waan gartay afayeen ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd qurba joogta kale ee dalalka kale ku nool dadkii abaartii in loo soo gurmado dhib badan baa jirta maxaad igana u diri lahayd intaan horta su-aasha aanan gelin waxaan maanta fursadan qaaliga ah ee Soomaaliya uga faa'iideysanaya waxaan baaq u dirayaa ummadda dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Somaliland haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed markaan maamulba ka tago waxaanu ka xunnahay xadhiga xaqdarrada ah ee muddo hadda bilku ku jiray wariyaha weyn ee ummadda Soomaaliyeed ilaa NFD ilaa Djibouti ilaa Soomaaliya ilaa qurbaha ay ugu jecel yihiin xabsiga sida xaqdarrada ugu jira ummadda Soomaaliyeed meel kasta dhibaataysan ugu tagay aan ognahay waxyaalaha uu qabtay gurbadka uu fidiyay ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan camoolaha leh caruuraha ciidamada odayaasha sida wuxuu qabtay nin wariyaha oo Soomaaliyeed waxaan ku matalayaa halyeeyga weynaa ee South Africa u kacay Nelson Mandela baan ku matalayaa ninkaas waxaan ka codsanaynaa maamulka gacanta ku haya Soomaaliland in xorriyadiisa siiyo waxaan maqlayay nin mas'uul sheeganaya waliba madaxweyne doonaya inuu Soomaaliland u noqdo oo ila Faysal Waraabe wayna warbaahinta ka lahaa ninka Cabdimalik Macdo aan awoodaya madaxweynaha waan toogan lahaa waayo calankii Soomaaliyeed uu welay arrintan ninkaas mas'uulka sheeganaya Faysal Waraabe waxaan leeyahay ninka aqligiisu heerka uu yahay Cabdimalik maanta odan warbaahinta Soomaaliyeed ugu dhul xabad in laga mamnuuco xabad in lagu dhufto wariyaasha Soomaaliyeed warbaahinta Soomaaliyeed waxaa ka codsanaya in isaga Faysal Waraabe laga mamnuuco warbaahinta uu la soo fariisanayo hadallada had iyo goor xinafta leh ee kicinaya ummadda Soomaaliya ama dhiigga Soomaaliyeed shacbiga ku dhaqan gobolada maamulka Khaatumo waxaan ka maamulka Soomaaliland waxaan ka codsanaya inay u istaagaan sidii ninka xorriyadiisa u heli lahaa inay mudaharaad sameeyaan
in kuwii uu biiri jiray ama uu qayliin keen jiray ee ku sugan magaalada hadday tahay Hargeysa, hadday tahay Burco, hadday tahay Soomaaliya, Muqdisho, hadday tahay Boosaaso, hadday tahay Galdogo, meel kasta oo Soomaali joogta intuu doodi jiray in ninkaas loo kaco loo mudaharaado loo soo laga qayb galo si xoriyadiisa uu helo xaqdar uu xukuman yahay hadalka Faysal Cali Waraabana waxaan leeyahay aad ummadda Soomaaliyeed uga naxday inuu maanta wariye Cabdimaalik Cawd ku yiraahdo hal joogto arintaasna waa de isaga ay noqotay waliba waxaan ummadda shaqo soo socda leeyahay waxa loo qabanayaa meesha la yiraahdo Djibouti baa lagu qabanayaa maamulka Khaatimo iyo Somaliland waxaan jeclahay in maamulka Khaatimo uu ka mamnuuco ninka inuu soo horfadhiisto maamulka Khaatimo uu wadada ka qayb galo in laga hor yimaado ayaan ka jeclahay oo aan soo jeedinayaa waxaan doonayaa oo hadalkayga ku soo gabagabeynaya maamulka Khaatimo ama shacbiga Khaatimo daliya timid waa inay gacmaha qabsadaan waa inay abaaraha ka shaqeeyaan waa in waxyaalaha maanta soo baxay ee ka dhaqaalay dhagaxyaga aad galwal waa waxun ay ka taagan magaalada Laascaanood aysiga daciifka ku falashay madaxda Khaatimo ay tahay G11 hadday tahay maamulka Khaatimo waxaan u soo jeedinayaa in shirkan iyo waxyaalaha xirta la iskaayo shirka hadda leeyahay waa la qabanayaa oo qodbo joogta qabsanaysa mana la joojiyo waxaan leeyahay wixii la kala qabay in hoos looga dhaadhiciyo oo haddii maamulka Khaatimo madaxiisa ay khaldan tahayna hoos wax lagu sheego warbaahinta aan la isku marin taas ayaan codsanayaa abaarahana waxaan soo jeedinayaa in si guud ahaan loo qayb galo gaar ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee maamulka Khaatimo ay ka looga qayb galo qodbo joogtooda waxaan maanta leeyahay baaqan aan soo jeedinayaa ugu dambeeya uu leeyahay goboladan dhulbahanto waxaan leeyahay ilmaadarayaal Khaatimo hanaga duminina oo tacab baa naga galay oo kharash baa naga galay oo dad baa u dhintay haddiise lagu talagalay maanta jifi inaad ku tiraahdaan farmaajo kamid ahay farmaajo ay tahay Siilaanya iyo iigeeyay war xitaa haddaynu u tagayno inaka wada jira oo madaysan oo mid ah ama Puntland ha ahaato ama Somaliland ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato inuu tagno inta haddaad diidaan waxaan maanta hortiina kala yahay kelmadii ahayd berigii Cali Khalifa uu ra'iisul wasaaraha dowladii xataa ka ahaa halkaas shaqada ka joojiyay baa wuxuu yidhi xamar waxaan ka batay kelmad ah ninka cirka soo dumiyo meesha ka gashidan ka gelaya haddaba ninka maanta Khaatimo dumiyo waxaad ogaataa meesha aad gudnimada ka gashay inaan ka gelayo oo dhulbaatona ka gelayo meesha aad gudnimada ka haddii aad maanta nagu dilsaan maamulka Khaatimo meesha aad ka gashaa baa ka gelaynaaye ogaada taa la ogaado intaas ayaan ku doonayaa waqtiga Khaatimo iyo la didimin bedelkeeda wax laga hayaana ma jiro sheekooyinkan jifida iyo Maxamuud Garaad iyo Farax Garaad iyo Baanu Gaaleed iyo nimanka Hargeysa ay dadka kula qaybiyaan la joojiyo ayay si yimaado wixii qaldan Allah taxo intaasana oranayaa inta iyagu dowladda shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Khaatimo waxaan leeyahay midnimo ay wax ku wanaagsan yihiin midnimada loo tusay okay aad iyo aad baad mahadsantahay afayeen aad iyo aad baad mahadsantahay intaas uu aan baan idin soo dhaweynaya